بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. waxaan rabaa si kooban inaan oga hadlo arrinta galabta halkaan aan u joogno. 2021kii baanu waxaan bilownay madariso Minneapolis 24ka meel u dhow. halkaas ardo aad iyo aad loogu dadaalay ayaa qur-aanka ku dhiganaysay, muslimiintuna ay jecel yihiin. qaar qur-aanka dhameeyey, qaar xifdiyey, intaba leh. ardadii markaas waxa weeye ka soo baxday oo qalin jabisay ay markaa kabire ay yihiin. meeshii sidaas ahayd baana la ku dulgatay 2025kii. haddii meesha markana la ku dulgatay, waxaa la yidhi meeshaan waa la gatay, home care baana ka dhigaynaa, waana inaad ka baxdaan. muddo yar baana loo qabtay. muddadaas baan waxaynu samaynay, waxaan raadinay meel kira ah, meel kiro ummadaas ardada intaas tiro leego 300 qaada waan weynay. intaanu marka juhdigii aan ku jirnay baan waxaan helnay meel kaniisad ah oo weyn oo iib ah. marka meeshii qoladii lahayd baanu raadinay bifadlillaah. waxaa marka noo suurta gashay inaanu dadkii helno meeshaa mas-uulka ka ahaa. waxay isugu kaaya ballamiyeen 2 qolo oo iyaguna meesha rabta oo doonaya inay kaniisad ku baaqi noqoto, iyo annagoo rabna inay masaajid aanu u bedelno iyo madariso wada socda. marka meeshii baanu ku wada kulannay. waxay yidhaahdeen annaga waxaanu rabnaa 1 sano inaanu meeshaan lacagteeda aan ku helno, waana 960,000. warqaday noo dhiibeen. waxay yidhahdeen qoladii shuruudda buuxisa unbaan ka gadaynaa. annagu marka ilaahay baanu tala saarannay. waxaanu isri ilmaha intaas tiro la-eg haddaad hadda bannaanka usii daysaan, waxaa suurtagala inaysa jaanis dambe helin oo ay dugsi ugu tagaan. ilaahay baanu tala saarannay. meeshii saasaanu ku qaadannay. waanu isku daynay sanadka inay wax noogu daraan, laakiin way noo suurtooba way diideen. annagu markaasaanu juhdi iyo dadaal baanu galnay. lacagtii dhomboon mitiga ahadoo 200 aanu bixinay. kabacdina juhdigii baanu sii galnay ilaa haddaanu ku soo gaarin. warqadda kontraktiga waxaanu saxinay May 1deedii 2025ka, waxayna ku eg tahay bishaan hadda aanu ku jirno 30keeday ku eg tahay. lacagtii waxaa noo soo xasishay 760,000 oo 200 oo dhomboon mitiga ay ku jirto. waxaa hadda naga dhiman 200,000. muddadiina maxaa ka hartay? 9 beri baa ka hartay. marka waxaanu leenahay oo ka codsanaynaa dadka muslimiinta ah meel kastoo ay joogaan inay nagala qayb qaataan. meeshaas inaysan gaalo gacanteeda aysan dib ugu noqon. meeshaas siday ku noqon lahayd masaajid iyo madariso muslimiinta u harta ilaa qiyaami saaca. arrintaas waxaan doonaynaa insha allahu tacaala inaad nagala shaqaysaan, inaad ilaahay adigu nagu caawisaan. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بنى مسجدا لله ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. إلهي سبحانه وتعالى يا مهد إسكاله قلبت وحان ربنا هالكان إنان ولا لها مسلمين تأه ميرور بيكون لهين مريكان إيه كندا إيه يوروبا إيه أفريقيا ذا كلا عيد كستو فيديو كان إيه كليب كان أسوق قاري وحان كعد سنينا دار المصطفى سنتر ووربحين تهذا شي عبد هادي ومامولها دارتا وبحيي إن قعمها لصوص بود قريو وجابك الله فرق. waxaa waaye kontraktigeedii waxaa ka haray 9 maalmood oo maanta qoraxda ay sii dhacaysa ay ku jirto. lacag 200,000 way ku harsan tahay. 760 waa la ururiyay sida sheekha uu sheegay. ilaahayna quraanka wuxuu ku leeyahay masaajidda waxaa camiro oo dhisa oo qurxiya
qof kastoo ilaahay iyo maalinta aakhira rumeeyey salaadaha oogay sakada bixiyey ilaahay hooyo cid kale aan ka baqin ilaahayna iimaan ayuu u qiray dadka masaajidda wax ku bixiya wuxuuna ilaahay ku sheegay inay dad hanuunsan yihiin oo ilaahay uu hanuuniyey wixii lagu bixiyana waa sadaqa jaariya oo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu noo sheegay qofka sadaqada dadka la baxa toddobada carshiga harsanaysa inay ku jiraan yowma laa dilla ilaa dilluhu waxaa ka mid ah warajulun tasadaqa bisadaqatin fa akhfaaha xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuhu qof sadaqa la baxay dar ilaahayna ula baxay dadka carshiga harsanaya ayuu ka mid yahay wuxuu kaloo nabiga noo sheegay calayhi salaatu wasalaam qofkii masaajid wax ka dhisa oo wax ku bixiya xataa meel shimbir ay ku hoyata in la mid ah ilaahay jannada wuxuu uga dhisaa guri qurux badan ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ku barakaynaya qofka beyd ilaahay wax ku bixiya wuxuu kaloo nabiga noo sheegay calayhi salaatu wasalaam xadiidkii bukhaari oo cajiibka ahaa oo nabigu uu yidhi maa min yowmin yusbixu alcibaadu fiihi ilaa malakaani yanzilaan fayaquulu axaduhumaa allaahuma acdi munfiqan khalafa wayaquulu alaakharu allaahuma acdi mumsikan talafa maalin kastoo waaga barya nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laba malag ayaa soo degtay labadaa malag midkood wuxuu u ducaynayaa maalintaa waageeda bariyey qofkii sadaqa kula baxa oo wuxuu leeyahay ilaahu qof kastoo wax bixiye maanta bedel khayr qaba sii midka kalena wuxuu ku ducaynayaa ilaahu kan ku dheggan wixii ilaahay siiyey oo asoo awooda aan wax ka bixinay ilaahu ka baabi'i xadiidkii imaamu muslimna wuxuu noo sheegay nabiga calayhi salaatu wasalaam idaa maata alcabdu inqadaca camaluhu ilaa min halaatin sadaqatin jaariya sadaqada jaariyada waxa weeyaan waa waxa markaa dhimata kadib ajirkeeda kuu soconayo waalidka ayaa loo niyeystaa waxaa loo niyeystaa dadkii kaa dhintay oo walaal iyo wax walba leh waxaa loo niyeystaa owlaadda waddankan noo joogto maraykan iyo kanada ee lagu wareersan yahay oo qaarkood xabsiya ku jiro qaarkood diintii ka tegey oo lagu kari la'yahay ayaa loo niyeystaa in ilaahay sadaqadu wax walba ayay daawo u tahay dadka xanuunsan xataa daawu mardaakum bisadaqa ayuu nabiga yidhi calayhi salaatu wasalaam qof kasta marka waxaan ka codsanaynaa intuu awoodi karo meelaha warqadaha aad arki doontaan oo zeelka iyo kaash abka iyo website masaajidka uu leeyaho asagana baar kood leh oo la iskaangaray karo intaba waa lasoo saari doonaa shaashadda insha allahu tacaala inaad ku soo dirtaan wixii aad awoodi kartaan insha allahu tacaala ilaahay waa idinku badbaadinaya adduun iyo aakhiro dhammaystiran buu rabbi idinku siinaya insha allahu tacaala intaas ayaan kelimadeeda kusoo koobaya haddii ilaahay yidhaahdo ka mid noqda dadka badbaadinaya beydkaas ilaahay insha allahu tacaala si ilaahay adduun iyo aakhiraba oo idiin badbaadiyo waayo sadaqada waa lagu badbaadaa fattaqu naara walow bishiqi tamra ayuu nabiga yidhi calayhi salaatu wasalaam naarta gaashaan ka samaysta timir la kala jeexa jabkeedba aad sadaqaysataane inta naarta la isaga badbaadiyey sadaqada ugu horreysa marka insha allahu tacaala sadaqadaas ha lala baxo insha allah waalidka iyo awlaadda iyo wax walbana loo niyeysto jazaakum allahu khayra bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu maanta waxaan halkaan rabnaa inaan muslimiinta ugu soo bandhigno daarul mustafa masjid oo runtii maraya meel gebagaba ah gebagabadaasna u baahan in gacan iyo garab iyo taageero uu ka helo muslimiinta meesha uu maraya muslimkaa soo gaarsiiyey 960 kun bay ahayd lacagta kontraktiga 1 yeerkaa lagu qaaday 760 baa la hayaa 260 baa dhiman 200 baa dhiman oo kuma baan leeyahay bisha May 30keeda kowda bisha May 30keeda ku eg tahay 9 bari baa ka dhiman 760 ka muslimiinta bixiyey waxaan qof walba oo codkaygu u gaara leenahay masaajidkaasi waqtigan iyo waqti ka dambeeya iyo waqtiyada aanan inteeda joogin ayaa waxa laga yaabaa lacagta adigu aad bixisay inay adna ay ku noqoto xasnaan iyo ajar kuu socda oo adoo nool iyo adoo nool kuu socda ama sadaqa tijaariya ay ku noqoto ummadda muslimiintana aad ku badbaadisid qof walba oo qayb ka qaado waxaan intan masaajidkan hawshiisa aan ku jiray aan aad u arkay oo aan horey u ogeyn dad aad u badan oo muslimiin ah oo Soomaali ah oo aad mararka qaarkood masaajidadii baa batay aad u kumleen gareynaya dadku qodobba waxay ka shaqeysaa culimadu masaajidda ka shaqeysaa anigu waa markii horeeyay oo aan masaajid iyo culimada hawshan kala shaqeeyo qofka politicianka asaga la rabo politicianka inuu meel gaarsiiyo haddii culimadii masaajidda ay badiyeen adigu sadaqadan waxaad siinaysaa ilaahay dadka u dhigeysanaysaa marka adigu ku bogaadi in masaajidda culimadii ay badiyeen laakiin culimadii baa badatay masaajidii macruuraha meel u dhisaan ma meeshaan qabtaan hadda culimadu waxay qabtaan waa diintii wadaan
هذي دينتي أي مركب مساجدي أي بدين دي وإلا ما شاء الله فيل يعني بوزيشن كل وقت صبحين إن قفك والبرا وحب حليا وإلهي درت شيخا وحوض درت وبحل ميسد وحي إيشو أدير إيش الجماعة يجرنا هذيك ما هتروح بحسي وعاد وحب بحسي وإلهي درتي إلهي والله عيتها صوب بحذي صدق بحسي نيد أنا الله كو غاضية وحليها ذلك المسلمين تا مساج كاس وقت يرمياهي وفضوا مالك هذا هيستين إلهي باكسي إلهي نكو مسين إن انتهي توسم بيرس وقف إلهي أدو تشعلي هاي وبرشدك تشعلي امتحان بكوية امتحان كنا إنا صدقي ستين مسلم كوبد بايسين صدقاء كوبد حسين أرمها إسلام كأذوق بغاية تبى الجوسي ما هي غير كاي وحليها دار المصطفى مسجد أذو كوبا حيا شخص كلا مبانا قف البون نفتح هذا كم سهولة كغيب قاتا وحركة بالبادية لما بقولكم يستقال كابري إن ومساج كاس قعدتي قال كل غضو والله بقول اللي إحنا كل واحد هستان يدرك أي دبع عشران إن أو بدبادو ومسلمين بداية الله سبحانه ومثاليه وحنا رجينا ولي ما يدعين مساجد يميل إلهي وليه أو قعدت قال كل نقطة إن طلعت البعواي تركب بحيانا ومسلمين تخير بالله الله يسيو إن هذا ما كان بغير تنبر رجينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.